طعم الدنيا. الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله، إلهي بمهدس قال تبارك وتعالى إن سوق الشيء بشي رمضان isagaan weydiisanaynaa inuu ina waafajiyo bisha khayraadkeeda iyo barakaadkeeda, inuu inta ugu badan inaga siiyo naxariista iyo weynaagga iyo khayrka iyo barakaadka bisha ramadaan. ilaahay tabaaraka wa tacaala adoomadiisa uu u qaybinayo. allah tabaaraka wa tacaala walaalayaal, cibaadaadkan uu ina amray oo ay ka mid yihiin arkaanta diintuba ku taagan tahay sida salaada, sakada iyo sadaqada, soonka, xajka iyo cumrada iyo wixii la mid ah. cibaadaadkani allah addoommada wuxuu ugu waajibiyey inuu ku addoonsado oo addoommadiisa ku imtixaano ku kala saaro, way kala baxaan midka rabbigii ateecaya iyo midka caasinaya. maqsuudka weyn iyo macnaha weyn ee ku jira cibaadaadka wuxuu yahay in addoonka isbeddel ay ku samayso cibaadadu, inay addoonka wax ka beddesho, oo salaadaadu ku beddesho, oo xajku ku beddelo, oo soonku ku beddelo, oo isbeddel aad noloshaada ay ka timaado dhanka wanaagsan aada isu beddesho. macnaha iyo maqsuudka cibaadadu kaa isagaa waay. saas daraaddeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacaala markuu ka hadlahayay salaada, alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala wa aqimi asalaa, salaada si saaniyoo saxa u tuko oo toosi. ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar, salaadu waxay ruuxa tukanaya ka reebtaa dembiyada foosha xun iyo wax kastoo ilaahay diiday tabaaraka wa tacaala oo uu inkiray ayay ruuxa ka reebtaa. salaadii waa inay ku xakamayso, salaadaadu waa inay wax kaa beddesho, salaadaadu waa inay xumaanta kaa celiso, salaadaadu waa inay yacni waxa weeye munkaraadka iyo dembiyada foosha xun kaa celiso oy kaa qabato, lianna naftaadii bay isbeddel ku samaysay. haddaynan salaadu xakamo kuu noqonin, macnaheedu waxa weeyaan salaadaa tukatay waxbaa si ka ah, khalal baa ku jira, sidii la rabay umaadan tukanin. lianna haddii sidii la rabay aada u tukato, markaaba waxaad ka dareemaysaa noloshaada isbeddel baad ku arkaysa. ilaahay tabaaraka wa tacaala sida uu inoogu sheegay qur-aanka kariimka, aayaadkaa inoogu sheegay, ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar. isweydii marka, salaadaadan faraha badan oo waajibka iyo sunnada leh wax ma kaa beddeshay? wax isbeddela ma kugu samaysay? sidoo kaleeto rabbi tabaaraka wa tacaala sadaqada iyo zakada markuu ka hadlayay, nebigiisa muxameda sala allahu calayhi waaalihi wasalam isagoo la hadlaya wuxuu yidhi, khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum biha wa tusakiihim. ka qaad buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala sadaqo aad ku daahirinayso iyaga, naftooda aad ku daahirinayso oo aad ku taskiyeynayso, ku nadiifinayso, ood ku daahirinayso. sadaqadii iyo zakadii la bixinayay iyo xoolihii la bixinayay ilaahay dartii loo bixinayay, naftaada ayay isbeddel ku samaynaysaa. cudurro nafta gala iyo dhaqan xumo ayay kaa saaraysaa. naftaadii baa daahir noqonaysaa, naftaadii baa nadiif noqonaysa, wasakh badan bay ka dhaqaysaa. isbeddel baa imaanaya markii aad zakadii iyo sadaqada bixiso. ayib, sadaqadaadu isbeddel ma ka dareenta? qalbigaaga, naftaada, xaalkaaga, akhlaaqdaada wax isbeddela ma haysaa? haddaadan isbeddel haynin inay kugu samaysay, waxaad u baahan tahay inaad dib ugu noqoto waxaad bixinayso. see wax ka yihi? maxaa ka maqan? maxay saamayntii u la'yahay? maxaa midhihii loo la'yahay? maxaa maqsuudkii loo la'yahay? maxaa ku dhacay sakadaada iyo sadaqadaada? maxay kuu daahirin la'dahay? maxay kuu nadiifin la'dahay? ilan ilaahay tabaaraka wa tacaala baa inoo sheegay
إني معناها فائديسو حج كمرقو ربي كهل تبارك وتعالى سيدوك لا أيها الأحبة في الله الله وحول تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات حجك بلا لا يقانو بلا قونية ويا حجك وقت جيسو فمن فرض فيهن الحج روحي حج نفتيس كفر يالي أو حجك قلي أو حدي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج رفث متشرو أفحما متشرتو دقن حما متشرو ضادي متشرتو مرن ملها خلد متشرو حج كيبات كل حجرتها عبادة سوى إني وحكا بدش ساس درادي بار ربي تبارك وتعالى إن بدو حد أركيسان مركا حجك اللي قوى الرمي بالذات وحآد وقصر نقونيس كلمة التقوى ده الآيات ده لفتها فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لما قرب يكسر نقد الآية ده كده وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب هذا هو المقصود إن عبادته وحكا بدش حج كاغو إنو كبدلو عمره دادو إني كبدشو حال كاغو إنو إسبدل كويمادو دنكا وناكسنا دي سبدشو مقصود كعبادته تاي داوا لكن وحوي واد سفرتي dhulkii baad soo marmartay isbedel lamale waad soo noqotay ribadii baad cunaysaa xoolihii dadkaad xaq darro ku cunaysaa akhlaaq xumo iyo dhaqan xumo aad la taagantahay af xumo iyo adin xumo aad la nooshahay khalqigii baa ka sheegtay ma nabadgelinaysa dib baad haysaa haddana waxa weeye bil walba waad soo cumraysanaysaa cumradaadii aaway xajkaagii aaway muxuu kugu sameeyey salaadii maxay samaysay aaway cibaadaadkan saameyntoodii aaway see wax ka yihiin حاجة وحكة كلا دمية حاجة إسكا قبل لعضة وسؤال سويدين له صانك الله مركوك هلا تبارك وتعالى إسلا نفس الشيء يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام مؤمنين تيو وحا ليدن كوا تبي الصانك كما كتب على الذين من قبلكم سيدي أمده إذن كهر ريب اللوغوا تبي إذن كنا ليدن كوا تبي حكمتهم محيطة سرتم محيطة مقصودكم حوي لعلكم تتقون سياد الله وقبقدان si alla ka baqid idin ku timaado qalbigiina ay ugu dhalato naftiina ay ugu dhalato akhlaaqdiina iyo muamalaadkiina isbedel ugu dhaco la'allakum tattaqun isbedel iyo alla ka cabsi laana waxa way taqwadu khayr ko dhan bay matasha jimaa'ul khayr wa ilaahi amarkiisi way lil awwalina wal akhirin wana sababka ugu muhiimsan oo ilaahi jannadiisa lagu gala cadaabna lagaga badbaado diinto dhan bay matasha ilaahi ka baq الله كبق بمعنى وحوي دين تكون رقم معناها سيكيني سامر لعلكم تتقون الصوم كتام كاش حولها حلال مي أفكاجي أدين كاجا دقن كاجواسه خلقك السيد ولا دقنتا واجبات كمجودتا حاران تمسك إلى لسا معاملة ربك الله دقت السيء تعالى خلقك سمعاملة هذا السيء تعالى لعلكم تتقون صون كاجو مكوب بدلي إسويدي مقصود كوين كاسوا لكن هداد أنكتو أود قاتشوتو أو أد عنتدي عبيتانك يقلمض إسكديسو وحي صون كتشمين لها بساد إسكد رافتي لكن وحاجي كلواد فصحنته واد تمشلينيسا يا صون كيلينا فريكاما عبادتي إلهي كود درينا تاما نبي نوح إليه صلوات ربي وسلامه عليه ليس الصيام من الأكل والشرب صومكم معها إن عنتدي عبتان كالليس كدايو أو كلية معها إن هذا نحولين مالين رمضان أوذا وحبا عبين أوذا قل مصمين أو وحي صون شمين لا أدسك إلاليسو إنت صون معها أبو النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه صونكم حوية حقيقي قاعد إلهي إنا فري مقصودك واك إنما الصيام من اللغو والرفث صونك وحوي أفحمدا يطلقن حمدا إن أسكديس سيداس درادت با صونك وحو كبريا حالات كأدق آد مريس حتى النفط هذا صاد وحكمين لهيد بو كبريا فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم هدو روح كلا عيتما كعاي أما حمانك قولك عكو قرد الرئيستو هكفع إلا قادني ها أتشواب هل الدقالمين هل عيتمين وحتى هذا وصومناه
cajiib waxaad tidhahdaa waa soomanahay sababtu waxa weeye tarbiyada soonku ku baraya tan ah naftaada adiga oo lagu gardaraysanayo lagu caayayo lagu xadgudbayo naftaada ma xakamayn kartaa ma iscelin kartaa nabigu sallallahu alayhi wasallam ka waynu ku sheegay ruuxa qiimaha mudle waxa weeye ruuxa markuu cadhoodo iscelin kara naftiisa ka adag isxakamayn karaya dabdin karaya naftiisa marka waxa weeye soonkii wuxuu ku barayaa akhlaaqda wanaagsan wuxuu ka reebayaa akhlaaqda xun haddii aadan soonkaaga macnaha uusan ku gaarsiinin oo uusan wax ka bedelin waxaad ogaanaysaa soonkii lagu diray ma aha saas daradeed baa nabigeenu sallallahu alayhi wasallam kama fi sahih al-bukhari wuxuu leeyahay man lam yad'a qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu dhaqan xumada iyo af xumada iyo akhlaaq xumada ruuxii aan iska daynin oo ka tagin ilaahay wax dan kama laha inuu gaajoodo oomo inaad iska dayso wixii ku afurinayay waxba lagu fali maayo inaad gaajootana waxba lagu fali waxba ka heli maysid inaad oontana waxba lagu fali maayo ilaahay dan kama laha maadaama wixii ka darnaaba aad ku jirto af xumo iyo dhaqan xumo iyo akhlaaq xumo iyo mukhalafaad ayaad ku jirtaa haddana waxaad leedahay waa soomanahay say isu qabanaysaa waxba lagu fali maayo waxaaga waxna ka heli maysid yaa saa dhahay nabi maxamed baa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh nabi maxamed baa saa inoogu sheegaya mucallimkii basharka ilaahay soo dirsaday ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وركيس ورون صلوات ربي والسلام عليه هو الناصح ومديس السوق قارسي وحي وحبا بوحي دنتو ذو كتشري وحبا إنك ما قرين النبي صلوات ربي والسلام عليه ساس ترادت صون كاقي عبادات كاقو وإني كبدلان وإني نولش هذا بدلان وإني أخلاق هذا بدلان وإني دقن كاقا بدلان وإني أف كاقا بدلان وإني أدين كاقا بدلان وإني بدلان لدقن كربك الله دقم يسو وحبدا كبدلان وإن لدقن كمخلوق الله دقم يسو وحبدا كبدلان علوش هذا وإني صونتو حبين كاقا ترنكو وإنو صومو عرب كاقو وإنو صومو قعنت هذا وإني صونتو لقت هذه أدين كاقو وإنو صومو قلبي كاقو وإنو صومو هذه قرنات صونتو الربا ساسا isbedelku ku iimaanaya macna qiimo badan baad gaaraysaa waxaad faa'iideysanaysaa wax kula socon doono soonka kadib waana maqsuudka cibaadaadka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka leeyahay waxa ajiib oo la yaab leh oo aad iyo aad loo la yaaba oo isweydiin badan mudan cibaadaadkeenu waa badan yihiin masaajidii waa buuxinaynaa umradii inta waa la socdaayo waa la soo noqonayaa bil kasta waa fawj baa sii socdo soo socda حجكي سند والبوالة تجيا صدقتي وين بحنينا هدنا مع ذلك ضد بدن أو وحاسو خيرات هيا بعدنك كلا وحي قصنا يا وحلا يابله وخائن لما آمنه وبينال الرن مشيغو حولها ضدك حق الركوعنا يا خياني الله الله اسكما إلى وحى علوشي سجليسه قردرية حد جذب يديك للدادية قبيلة قشم بكتشرة قاد السجار بكو أفريا وحي إلهي حرمي بو قصنيا هذا كال أرق عبادات كيس وراوي عبادات الرات كيدي سامين تاوي مريه آوي اسبدل كي آوي إله الله تبارك وتعالى برنش النوش هيك واحد أجانا يسامر كاس عبادات هذي اسبدل كاس سامين ويدو عبادات سي يد اللفت ذي بس وحكيهن أودي أي وحكو سامين لهيد بيسن لهين أما وضعيف ويتبر يرتهي وإسبدل كي كو سامين لهيد بين أود ولهين أما عبادته ما بأصحين وتعبان وواحد شربا معها وإلا عبادة سيدي ربي كو قدري هداد أصميسو شك ما لها عبادة سي إسبدل إني كو سامينيسو هل كاسا مرك اللوبة هي ولا ليها بيشن بركيسن وبيشي إسبدلك وشهر التغيير وبيشي إسبدلك وبشي روح مؤمن كان نفتي سأوكأت كان لها وبشي إلهي الشياطين تي إن قحر حرايا وشان سوء إن السيي وبشي الروح بلود لها والذنوب تقاركت كو امتحانا وإسكقوين لها يوكقو إلها وبشي كي خير كسمين جرين خير كأوسيادين لها كي حمان تسمين جرين وحمان تكسوقو إلها وبشي إسبدلك هدين لقاوايو وحاقي قصته وحد أغانيسا إلهي تبارك وتعالى عبادته كودري ما هيسد سيد حديث النبي إنه صلى الله عليه وآله وسلم كعد وبالتالي تعب كأت سمين يسير دال كاغو خساره كدعيا
wuxuu nabigeenu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa badan ruux sooman oo soonkiisa waxa uu ka helaya keliya uu yahay gaajiyo oon waxaa badan dad habeenkii salaad u taagan oo waxa ay ka helayaan keliya uu yahay inay soo jeedeen wax galo ilaahay agtiisa le ku leeyihiin ma jiro tabaaraka wa tacaala naxariistan iyo raxmaadkan iyo khayraadkan iyo wanaaggan degaya si aad bisha uga baxdo adigoo lagu dambi dhaafay si aad bisha kuugu dhammaato adoo lagu xoreeyo qoortaada naar laga xoreeyo si aad u gaadho ilaahay radihiisa tabaaraka wa tacaala si aad uga mid noqoto kuwa jannada ilaahay shaqaystee kasbaday ee alla ku fadilay si aad u noqoto khaatumo wanaagsanna akhiiran noloshaadu ay ugu dhammaato waxaa loo baahan yahay inaad naftaada ku kallifto mar walba isbeddel dhanka wanaagsan ah waxayna ku imaan kartaa dadaal waxay ku imaan kartaa mujaahada waxay ku imaan kartaa juhdi iyo dadaal aan caadi ahayn iyo dagaal uu ruuxu naftiisa la galo markaad adigu dadaasho ood xaggaaga ka dadaasho ayaa ilaahay ku siinaya tabaaraka wa tacaala isbeddelka aad doonayso inna allaha laa yugayiru ma biqawmin xataa yugayiru ma bianfusihim ilaahay wax addoommada ku sugan ma bedelo ilaa iyagu naftooda waxa ku sugan ay bedelaan ilaahay sunankiisa waxaa ka mid ah addoonku wuxuu la yimaado ayuu ilaahay midho ka siiyaa addoonku hadduu naftiisa hakrado oo isagu dadaalkii loo baahnaa uu la imaan waayo allah tabaaraka wa tacaala markaa cuquubuu ku ridaa ee wuxuu rabay lamaba siiyaba sidaas daraaddeed waxaa la doonayaa bishu waa bishii isbeddelka soonka salaadaha sadaqaadka cibaadaadka wanaagga faraha badan cumrada mar walba waa inaad isa saarto miisaanka ah war maxaa iska kaa bedelay ramadaan 5 bari buu marayaa waad soontay salaadii waad tukanaysaa sadaqadii way socotaa khayrkii waad ku jirtaa war maxaa iska kaa bedelay 5 bari isbedel ma dareenta markii aad joogto usbuuc 10 bari maxaa isbedel ah 20 bari maxaa isbedel ah 10kii bari bisha ugu fadli badnayd iyo 10 al-awaakhir maxaa isbedel ah bishii dhamaatay dhaqankaad isku taqaanay ma iska bedeshay xaalkaagii wax iska bedeleen maxaa ku kordhay maxaa si ka nusqaamay xisaabtan oo naftaada iyo wixii kordhay ka warhay wixii ka nusqaamayna ka warhay isbedelku sidaas ku iimaanaya markaas waxaad noqonaysaa ducadii nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam ku ducaysan jiray ilaahay oo cimrigayga qaybtiisa dambe khayrka mid siyaasada iga dhig mar walba oo cimrigaagu sii socdaba inaad dhanka khayrka u sii durugto siyaadada khayrka gasho xumaanta iyo dambiyadii wixii ilaahay ka fogeynayna aad nusqaamiso waxay ku iimaanaysaa xisaabtanka iyo isbedelka iyo dadaalkaas sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda allahumma 'anil sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin allahumma ya hayy ya قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك